aad bal dadweynaha hoos dhigtaan taariikhdiina oo kooban oo aan ku horeeyo Sooraan bal halkii waxay dadku isweydiin karaan taariikhda Sooraan waa kuma halkuu fanka ka soo bilaabay goor muu dhashay halkuu joogay marka waa fiican tahay de horta anigu taariikh aan leeyahay oo aan meel marinayo oo aan leeyahay xilligan dhashay iyo markaa ma waxaad leedahay mise barnaamijyadan aan wadno iyo bilowgeedii halkan ka bilownay mise awal halkii aan bal taariikh nololeedkaaga yar oo kooban naga sii warniyo taariikh nololeedka ma horta ninka mutacallinka baa lagu qaatay waayahay bal adigu waxaan anigu qayb ka ahay de anigu taariikhdayda goortaan shaqadan horta fankaa bilaabay waxay ahayd 79 waxaan ka mid noqday koox yar oo durdur markii dambe la baxday laakiin markii hore baka kale odhan jiray Soomaali abo dabeedna kooxdii markii dambe koox weyn bay noqotay oo durdur bay la baxday dhowr iyo 80nadii ayay noqotay koox soo shacbaxday anigu kooxdaas ka tirsanaa markaan ka tirsanaa jilaabaan anigu kooxda ka ahaa heesana kama ahayn mu'allifna kama ahayn xilliyo kamid ah xilliyadun baa waxa ila soo kulmay inaan mu'allif kii gudoomiyaha ahaa meesha haystay waad samayn kartaa samee wax dabeedna waxaan sameeyay hees yaroo iska gaaban oo nin kooxda ka tirsanaayo saar koonfurka noo qaadi jiray baa ka tagay kooxdu iftiin u tagayay annaguna markaa waxa kii baa wuxuu yiri waxaad samaysaa dad saar waqooyigii sida awgeed waxaan bilaabay hees hiyeelay la yiraaho marka saar kon la tumaya wuxuu ku wanaagsanaa kilaabadan kooxdu ay markaas baararka waaweyn ay ka tunto heesaha ku wanaagsan saarkaas oo jaanta ama rhythmka la tumaya ayaa ku wanaagsan in lagu ciyaaro sida wuxuu yiri warkaas wuxuu inoo wadi jiray kii koonfurta ah oo uu inaga tagay kii waqooyiga marka dadkeena ciyaaraha samayn jiray baa waxa jiray niman yeeleelay oran jiray oo magaranaysa tii uun baanana ciyaari barcada waa barcada tii baan ka sameeyay shimaali baa loo dhiibay waa la tumay habeenkii mid kalena isku dayay inuu igu yiri isla habeennimadii marka anigana moraalkii inaan nin wax samayn kara ahay markaas uu iga dhigay badaninkii markaas la habeen qulu abwaan caadi noqon macna abwaan caadi uu soo qaatay subaxdii soo abwaan soo shalay galab ma ahay adoo abwaan ba soo kacday yaan waa ku waabiristay sidii kale waxay noqotay soo degay saarkii duleedo soo degay iyadana shimaali baa qaaday halkaasaan ka soo baxay dabeedna markii dambe adigu waa dee fankii iyo wixii jiray baa hore ugu soo gudubtay way isla burbureen wixii baa deehayo wadankii fankii isku dhisnaayay koox ahaan ee waa beri lahaayay heegan lahaayay halgan lahaayay durdur lahaayay jiray ee dhisnaa dee way burbureen markii dambe tafaraaraq baa ku dhacay oo midba meel ayuu ka dhacay haye captain aniga tirmiya maxaa ka soo bilaaba halka dhow ka soo bilaabo adiguna 7aadkii deelee kamid ah ugu dhalashay 4 haye kacankina waa ka habsaaday anigu meel weyn baan ka gelaa haye kacanka habsaan baan dawladda kacanka ahay meel weyn baan ka gelaa waa ka habsaaday haye dhalashayda 4 haye hadii ba xugmaayo anigu ma ahayn fankii hore ee babaqashay dadka qaar waxaan waa yesterday qolada ingiriiska ku hadashay boogti waxaan war waa shalay tan kale marka anigu yesterday baan ahaa iyo qoladii haddaan kooyay okay labadiin marka halkeen iska hesheen goormay fikradan idinku dhalatay waxay nagu dhalatay ninkan waa nin actor-ku marna waa u dhalasho oo markii sooran fanba ku jirin ba actor-ka yahay midna waa dee iska mid kale ninkan markaa sidiisu actor ku ahaa anagu burcaan isku baranay ninka kan markaan valisa arkay waan arkay inuu nin yahay wax mateli kara aniguna markaa ninkan markaa waan soo raadsanay labada iyad baan lagu istuunaynaa isugu nimi meel waxaanu isla garanay markaa inaynu bal waxaan fanka la yiraahdo markaa ninkan wuxuu u lahaa waa u dhashay sida tan burcaan aanu isku baranay sidii un baan ku wada soconaa markaas halkeen iskala jaan qaadnay Soomaalida waxay tiraahdaa ama buuraha ama buur ku tiirsano markii hore ninkan anigu ma aqoon laakiin waa la iga sheekeyn jiray laakiin aniga waxaan u iskeekay jiray laakiin wax ninkan oo maskaxdiisu tahay good idea
oo dadkii horena ka mid ah kuwa dambana ka mid ah wuxuu kasta fahmaya waxa soo socda sida qisadu noqonayso wax kasta fahmaya ayaanu salay dabadeetna maalintaanu salay ilaa maanta wanaga wada socon ma baana kala harin fikradda saas ma ku curato inta badan maskaxaa inta isaga soo fulayaan waa nin maskaxdiisu dadka maanta abwaaniinta jooga ama waxa la yiraahdo mukhrijka Soomaaliyeed ee isku xirka filmaanta iyo isku qisaynta iyo waxa ka dhalanayaan iyo waxyaalaha noocaas oo kala Soomaali maanta in yar baan ninka maskaxdiisu